لأي بارتن كه ذا صهلا مدفتي بلي عطاني هبة يري صام باذن مياهي كوبر بهاريان kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad dunida ka joogtaanba waa mar kale iyo Dhabaal TV waad uga barateen inta badan inaan idila socodsiino waxyaabaha ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Khaatume State of Somalia diyallaha wadaliho kolaado toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa qodobada ay ka mid ka yihiin waa sidee xaaladaha ka alowsan magaalada Laascaanood iyo dhibaatooyinka uu maamulka SNM uu ka wado gudaha magaalada Laascaanood ay beesha caalamku ka tiri duulaankii qariska xoorka ahaa ee jabhadda SNM ku soo qaadeen magaalada Saxdheer qodobka saddexaad maxay jabhadda SNM ka yiraahdeen baaqaasi ay beesha caalamku u soo jeedisay halka talaqdoono waxay tamar lahaayeen ninba meel ku taageero hadda waynu wada toosnay hurdadaynu tumanayni waxba weyna tarweyn daawadayaal dhagaystayaal rumaantii jabhadda SNM waxay ku fashilmeen ku guul daraysteen inay is hor taagaan xafladii caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume State of Somalia mudane Professor Ali Khalif Galeyd waxaana arrinkaasi markhaati ka noqday Universal TV oo isagu soo duubay daawadayaal meel kastoo aad naga dheehanaysaan waa telefishinka caalamiga ee Universal iyo stuudiyaha magaalada London oo anigoo fadhiya aan doonayo si toos ah inaan ula sheekaysto oo u wareysto madaxweynaha cusub ee maamulka Khaatume State Professor Ali Khalif Galeyd oo ku sugan degmada la yiraahdo Saxdheer oo ka tirsan Khaatume State daawadayaal wariye Cagmadhige oo ah wariye dhexdhexaad ka ah arrimaha ka dhacaya wadanka Soomaaliya waxaan jeclaystay inaan weydiiyo wariye Cagmadhige goorma ayaa la doortay Ali Khalif Galeyd yaana ku xigeenkiisa loo doortay afar iyo tobankii bisha Agost sanadka 2014 ayaa Saxdheer waxaa lagu doortay madaxweyne Ali Khalif Galeyd inuu noqdo madaxweynaha sanooyinka soo socda ee Khaatume State iyadoo madaxweyne ku xigeenna loo doortay Cabdul Cagalule oo isaguna madaxweyne ku xigeen Khaatume ka noqonaya taasina waxa ay ku timid baarlamaanka Khaatume kadib markii ay u codeeyeen oo ay markaasi cod aqlabiyada ay siiyeen Ali Khalif Galeyd inuu madaxweyne noqdo Cabdul Cagalule oo madaxweyne ku xigeen noqdo munaasabada aad u qiimo badan ayay ahayd maalintaasi 14 bisha Agoosto 2014 halgeesi Soomaalinimadu lagama dhaxayso maanta islaamnimadu lagama dhaxayso derisnimo lagama dhaxayso wax aan qoriga wada hadal iyo wada xaajood lagama dhaxeeyaan Somaliland iraadada dadkan ma ay hor joogsan karto mana khasbi karto colaada bay fogeyn maxaa keenay inay weerarkaasi waxashimo ku soo qaadaan shacabdanahooda ka tashaday maamulkooda samaystay maantana aan u baahnayn inay maamulo kala daba fadhiistaan maxaase ku kalifay jabhadda SNM inay xilligan micin bidaan qoriga caaradiisa iyo inay maalin walba daadiyaan dhiigga shacabka reer Khaatumo teeda kale haddii ay jabhadda SNM Soomaalida ka diideen dal kaliya iyo calan kaliya ee la wada lahaa xaq bay tahay inay ku qasbaan shacabka reer Khaatumo fikirkooda guracan iyo goosashada madax martay haddaba waxaa isweydiin mudan halkeebuu salka ku haya xasuuqa ba'an ee ay jabhadda SNM ku hayso
shacabweynaha reer khaatumo ee iyagu wakhtigan hurdada ka toosay. waa mare jabhadda SNM waxay rabtaa inay qori caaradiis ku ogolaysiiso mabda'eeda guracan ee madhalayska ah. oo marka labaadee waxay rabtaa in aanay marna tashanin shacabka reer khaatumo islamarkaasina ay kala dagaalamaan dhinac walba. waa marka saddexaadee waxay rabaan inay ku takrifalaan khayraadka dabiiciga ah ee ilaahay ku galladaystay deegaanada Khaatumo State of Somalia ee ay dowladaha shisheeyuhuna eeganayaan. waa marka afraadee waxay rabaan inay si weyn uga aargoostaan shacabka reer khaatumo maadaama ay ciilqad badan ka tirsanayeen dowladii dhexe ee Soomaaliya. waa marka shanaadee waxay rabaan inuusan maamulka Khaatumo State of Somalia madaxa la soo kicin sababtoo ah waxay ogyihiin hadduu maamulkaasi hana qaado waxay ka baqayaan inay waayaan shilimaadkii ay shacabkan ku qaadan jireen. wax maanta talaqdoomo waxay tamar lahaayeen ninba meel ku taageero hadda waynu wada toosnay hurdadaynu tumanayna waxba weyna tarweyn. daawadayaal shacabweynaha Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxaa xafladda caleemasaarka madaxweynaha Khaatumo State of Somalia loogu qabtay degmada Saaxdheer hase loogu qaban waayay deegaan aysan maleeshiyada SNM hawaysan karin sida caasimadda gobolka Cayn ee Buuhoodle. haddaba saaxiibayaal hore loo yidhi tabhayow lagaa tabhaye ee sababta loogu qaban waayay deegaano aysan fooda soo gelin karin waxa weeye si loo fashiliyo huuhaadii iyo beentii ay caalamka u dhoobdhoobi jireen waxaana ku dhaceen dabinkii ay u qooleen siyaasiyiinta reer Khaatumo. daawadayaal dhegaystayaal hore loo yidhi maantad waa mudacye caaradoodii isla arrintani waxaa isaguna si khibradaysan u sharxay sareeyo guuto oo Axmed Saleebaan Dafle. sidaa u sameeyeen ma jooga caasimadiisii maanta waa ognahay caasimadiisu waa Laascaanood ma joogo waxay sidaa u sameeyeen oo waliba maanta xadka ula tageen waxa weeyaan inay muujiyaan mabda'ooda inay muujiyaan inay maamulada ka mid yihiin inay muujiyaan inay rabaan wixii raba. daawadayaal isla arrinta ku saabsan maxaa caleemasaarkii madaxweynaha maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia loogu qaban waayay meel ammaankeedu sugan yahay waxaan wax ka weydiiyey Korneyl Cabdiqaadir Sandoon waxaanu kaga jawaabay sida tan. Soomaalidinka watada weeyo wax badan bay si gardarra ah oo cadowtinimo ay deegaanada Khaatumo ay maalinba meel soo weerarayeen. taas markii la arkay odayaasha G11 oo hormuudka u yahay Cali Khaliif iyo Cali Ciise si beesha caalamka loo tuso nimankan gardaradooda maalin walba dad meel ku leynaya ayay waxay sameeyeen dadkii shirkii hore ee Taleex watay soo weerareen wala markii dambana watay soo weerareen laba jeer markii dambana Saaxdheer watay soo weerareen marka waxa weeye arrintaasi waxay adduunku u arkay inay khalad tahay way ku fashilmeen innaguna hadafkeenu lahayn waynu gaadhnay odayaduna aad iyo aad waa niman siyaasiyiin ah had aad u fara badanna waa loo haynaa dadka iyo dadkooduna waxa weeye maanta sharaf bay ku leeyihiin way ku guulaysteen arrintaas Somaliland oo way ku fashilantay.
dhinaca kale mid ka mid ah isimada ugu tuka weynaa ee lagu marti qaaday xafladii caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume State of Somalia wuxuu isna beesha caalamka ugu baaqay beesha caalamka waxaan leeyahay iyo dawladda aan jaarka nahay intaba gardarrada cad ee xornimo u diidka ma tashan kartid ayaa kama hadli kartid lagu khasbaayo maamulka state Khaatume State iyo madaxdiisa iyo shacabkiisa waa inaydan ka aamusin hiil siyaasadeed iyo mid aadamnimo inaad u fiirsan baan leenahay wadayaal dhagaystayaal sidaan ka wada warqabno beesha caalamku waxay mar kale baaq u dirtay maamulka beelaysan ee dhulboobka ah asaatay odayga beesha dirta waqooyi ugu weyn isagoo taageeraya xaqdarrada iyo xasuuqa ay wadaan beeshiisu balila dheehda hadaladii uu ku hadaaqay idinka cagta lagu haya yaynaan kala dhimanin dawlado kalaa jira ilaahay baa jira yaynaan kala dhimanin ingiriiso innagaa baha ahayn innagaa shaqnaqaan naga dig bartankayagii xadkii adigu aad dhigtay aad lagu soo cidhiidhiyey ayaad weliba damacday inaad dawlad kale ka dhisto darooyinka waaweyn ka mid ah beel iska dhan oo xaqdarro ku wada socotaa oo haddana wax aanay lahayn u dagaalamaya saahaatee hadallada odaygan beesha dhexe u weyn waxaanba ku xasuusta kii lahaa waxaa kaasina ka sii darnaa mid isaguna ka mid ah siyaasiyiintooda hase ahaatee markan xaqa ayaa ka hadliyey xaqii inay dhistaan annaguna dowladdii somalilan u jirta ayaa naga sanam samaysan oo waxnu qori qaadan oo la dagaalan hadday u arkayaan xal in ay gooni noqdaan anigu da kuma canaanay laakiin kulle wuxuunaan u arkaa dadaannu kala aragtinahay daawadayaal waa iska yaabkiise ninkii sidaasi xaqa ugu addimay balila dheehda wuxuu ka daba keenay arrintan saaxdheer annagu mabda'iyan in maamul goboleed soomaaliya laga dhex sameeyo somalilan ma ogolin mana suuragelayso marka ay weliba wadato faragelin dibadeed waxaa kana ka sii darnaa mid ay u qariyaan naanaysta ah fadlan igu shubo oo looga yeedhay Itoobiya diyaaradna lagu qaaday balse markii dambe ee runta loo soo sheegayna safarkiisu noqday mid dhulka ahaa kadibna wuxuu cadhadii ciilqabkii wejigabixi iyo foolxumadii kula dul kufay ilaahay ha xafidee madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume State of Somalia mudane Professor Ali Khaliif Galeed khaliif ka hadlo cali khaliif iyo qeyrkii kale oo reer Soomaaliland oo meelaha xamar iyo meelaha ka waarsada mar waxaan u aqaan inay yihiin niman calooshoodu shaqaystayaal oo u shaqeeya basaasiin muxuu ahaayay joogta oo ku sugan Nairobi iyo xamar oo ay ka mid tahay dowladda ku meelgaarka daawadayaal kana waxaa ka sii darnaa axadkan oo marna bariya beesha caalamka iminkana u hanjabaya nidaamka Soomaaliland sidaa charchar waxay ku socdaan waxa weeye story sanaag in state gaar ka dhigaan never it would never happen ana ku sheegay nagar ma dhacay ka koriyay iyo kala ugu raariday been buu sheegay daawadayaal dhagaystayaal waxaa isaguna si aan caadi ahayn Khaatumo ugu khafiifay Faysal Cali Waraabe haddaba mid ka mid ah telefishinada Soomaalida waxaan u soo mariyay fariintan dhinaca Soomaalida waxaa naga soo gaaraya canjarafay waliba ninka la yiraahdo Faysal Cali Waraabe Faysal geed walba in gubtaa way hoostaada maanta idinka dab
iyo dhibaatooyin lagu filan waydin hoos taala shakhsiyan adiga waxaa ku leeyahay intaad khaatumo aad eegaysid inankaagu halka uu jiro waad ogtahay waa ciraaq ku jiraan taasaa xilkaasaane reer khaatumo way ka koreen isim iyo siyaasi nin sheegta oo maalinba kulan ku qaata oo meel wax faraguudkoodu doonta khaatumo way ka kortay daawadayaal dhegaystayaal duulaankii aargoosiga ahaa maatadooxa ahaa ee ay jabhadda SNM ku soo qaadeen degmada Saaxdheer waxaa isaguna ka hadlay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya taasina waxay heel iyo taageero u noqotay shacabweynaha reer Khaatumo iyo maamulkoodaba nabil dabahna waxay ku noqotay maamulka isku magacaabay Somaliland balse ila dheehda waxa ka burqanaya kan warfaafinta u qaabilsan maamulka Hargeysa looga arrimiyo anaga dhuxul iyo xasan inamadaasi waxaan leenahay waa jabiseen maanta waa jabiseen heshiiskii loo dhexeeyey wadahadalkii Soomaaliya iyo Somaliland u dhexeeyeyna waxa uu noqday mid dhaawacmay markii uu dhuxul ku dhawaaqay in uu ka hadlo qayb ka mid ah Somaliland Soomaalidu waxay ku mahmahdaa labadii xaqdarro ku heshiisa xaqa ayay ku culoobaane madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo isagu markii ugu horeysay ku dhiiraday inuu cadeeyo jiritaanka 18 gobol ee Soomaaliya isna muxuu ka yiri gobolada soo ay sanad Soomaaliya kamid yihiin dalka Soomaaliya kamid yihiin 18 gobol ee dastuurka federaalka uu tilmaamayay kamid yihiin xor waxay u yihiin inay inta meel tagaan ay tashadaan oo go'aan ay gaaraan raalli kama ahin colaadaha qaarkood oo meelaha ka soo noqdo laakiin kuwa beereed oo ama beer dhexdeeda ama siyaasadaysan intaba aan rabaa horta inaan dadka Soomaaliyeed sheego goboladaasi waa laba gobol oo 18 gobol oo Jamhuuriyadda Soomaaliya la yiraahdo kamid ah dowladda federaalka dastuurka ay leedahay ku yaalo gobol kasta oo Jamhuuriyadda ka tirsan wuxuu xor u yahay inuu xor u yahay daawadayaal dhageystayaal maamul goboleedka isku magacaabay Somaliland waxay in badan isugu sheekeeyeen inay yihiin qaran ee aysan qabiil ahayn haddaba arrinkaasi waxaa beeniyey mid ka mid ah xildhibaanada Khaatumo State of Somalia xilli ay shir saxaafadeed ku qabteen caasimadda gobolka Cayn ee Buuhoodle waxaan intiin in ay weerarka darraa ku hayaan barakicinayaan dadka ku nool Sool Sanaag iyo Cayn dilayaan kufsanayaan hantidooda qaadanayaan iyagoo ah qabiil abaabulan oo u muuqda sheeganayana in ay yihiin maamul laakiin xaqaa'iqa dhabtii la ogyahay uu yahay inay yihiin jabhad aargoosi ah waxaan ugu baaqaynaa annagoo ah xildhibaanadii maamul goboleedka Khaatumo kuna hadlayna afka dowladda in dadka reer Khaatumo ay u diyaargaroobaan isuguna duubnaadaan sidii ay meesha uga saari lahayd una soo afjari lahaayeen dadka dadkooda dhibaatada dilka iyo dhacba ku haya daawadayaal saaxiibayaal maxay tahay ujeedada ka dambaysa maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia
haddaba waxaa inooga jawaabaya mid ka mid ah aqoon-yahanada ugu tunka weyn maamul goboleedka Khaatume State of Soomaaliya waxaanu yidhi qofkii marka Khaatume taageera waa qof taageeray midnimada Soomaaliya macnaheedu waa qodobka labaad marka laga yimaado maareynta iyo maamulka ummadaas qodobka labaad oo loo dhisay waxa weeyaan inay doonto midnimada Soomaaliya Khaatume cidna duulaan kuma aha haba yaraatee cidna dulmi kuma wado cidna waxa ay leedahay inay dumiso ma rabto daawadayaal dhagaystayaal shimbirka galeydhka la yiraahdo muxuu kaga duwan yahay shimbiraha kale waxa arintaasi inoo fasiri doona mid ka mid ah dhalinyarada reer Khaatumo waxaan taageernaa madaxweynaha Professor Cali Khaliif Galeydh oo nin caan ah oo siyaasi ah Master Galeydh baa ninkan la yiraahdaa magaciisu waa Galeydh shimbiruhuna ma raacaan Galeydhkana shimbiruhu way ka cararaan annagu Galeydhkaanu taageernaa shimbiraha ka suusuula Hargeysa iyo Master Galeydh oo taageernaa daawadayaal saaxiibayaal ugu dambeyntii tan koowaad shacabka reer Khaatumo iyo maamulkoodba way ka gudbeen awrku kacsigii maamulada waxaanay maanta yeesheen madax iyo minjo iyo waliba meel loogu soo hagaago tan labaad shacabka reer Khaatumo iyo maamulkoodba waxay beeniyeen oo ay meelna kaga soo hadheen kuwii lahaa ma tashan kartaan maamul ma samaysan kartaan tan saddexaad shacabka reer Khaatumo iyo maamulkoodba waxay maanta ku guuleysteen inay beesha caalamka iyo shacabweynaha Soomaaliyeedba ay ka dhaadhiciyaan waxay doonayeen tan afraad shacabka reer Khaatumo iyo maamulkoodba waxay soo dhaweynayaan wada hadalna u furayaan kuwa ka fallaagoobay ee wali la lafaysanaya maamulada SNM iyo SSDF tan shanaad shacabka reer Khaatumo iyo maamulkoodba waxaa looga fadhiyaa in ay gacmaha isqabsadaan meelna uga soo wada jeestaan cid kasta oo isku dayda inay wiiqdo waxyeelayso maamulkooda curdinka ah waxaana barnaamijkan isku soo dubariday isla markaasina idinla socodsiinayay aniga oo ah Ismaaciil Ibraahim Ducaale Aftaag waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo is arag maqal dambe oo xiiso leh